دولة الصومالية waxa ay joogtay oo fadhi u ahayd magaalada Baydhabo xamar waxa joogay maxaakiimtii islaamka oo xukumayay waxaan ka soo dhaqaaqnay Baydhabo annagoo aan ciidan wadan ee qof walba baabuurkiisa uu ku socdo oo aan ku nimid xamar oo aan kaga noqonaynay kolkaan doonay intaan nimaadna asbuucii weekendiga aanu ku noqonaynay nabadda taallay dalkan cid qiyaasi kartay ma jirto maxaakiimtu waqtigaas sheekh xasan sheekh axmed oo hadda inala joogaa fulintu ahaa sheekh xasan daahir aweysna wuxuu ahaa shuurada annagoo 15 xildhibaana ayaa annagoo Baydhabo joogna maadaama markaasi khilaaf yari uu jiray oo ka dhaxeeya madaxweynihii Soomaaliya Allah u naxariisto Cabdullaahi Yuusuf iyo Prime Ministerkii Soomaaliya Cali Maxamed Geedi go'aan waxaanu qaadanay odhanaya inaanu nimaadno Muqdisho oo aanu madaxda maxaakiimta la kulanno waanu nimid kolkaanu nimid ninaanu galbeedka ka wada nimid oo dhakhtar ahaa oo la shaqaynayay ayaa waxaan ku yidhi waxaan rabnaa madaxda inaan la kulanno waana laga oggolaaday jimcay ahayd bishu afurbaana loogu sameeyey hotel la odhan jiray waqtigii caydid loo bixiyay magaca hotelka nabadda xamar sidaa doonto ayaad u dhexlugaynaysaa waqtiga maalinta waxaan ku maahmaahay 5 farood ee gacantayda ku taal caawana waan ku celinayaa 5 farood waxay isku haystaan hoggaaminta gacanta ay ku yaaliin suulku wuxuu leeyahay isagaa u horeeyay sow ma aragtaan sidaan idin u kuusnahay iyo meesha ilaahay dhigay oo isbees weyn ah sidaasaan ku ahay hoggaankiina tanaa hadashay waxay tidhi bini aadamku markuu dhaaranayo ama markuu wax tilmaamayo anuu isticmaalaa oo igu fidiyaa waxa uu rabo tan dhaxaa hadashay waxay tidhi halka ilaahay dhigay sow ma aragtaan waa bartanka 2 faroodba dhinac bay iga jiraan waanan idinku dheerahay sidaasaan u ahay hoggaankiinni alla uu iga dhigay tanaa hadashay waxay tidhi waxa ugu qaalisan ayaa laygu aaminaa oo dahabka aniga kolka ugu horreysaba la geliyaa waxay kale ay tidhi kolka qoys la unkaayo anaa layga bilaabaa oo fargalka la geliyaa sidaasaan ku ahay intaasi mid waliba waxbay sheegatay tan faryarada ayaa hadashay marka waxay tidhi quwad malihi qurux malihi cid isticmaasho si gaar ah isticmaashana ma jirto laakiin bal iska kay gooya qurux ma leedihiin waa maya bal iska kay gooya sidaa wax ma u qaban kartiin waa maya waxay tidhi qurux iyo quwaba waxaan ku leenahay waa wada jirkeenna maxaakiimta maalintaa waxaan ku idhi afurbaanu afurni markaa waxaan idhi waxaad haysiin dalkii iyo dadkii annaguna waxaanu haynaa caalamkan oo leh waa aqoonsanay dowladda Soomaaliya laakiin labadaasi ma kala maarmaan marka waxaynu u baahannahay idinkoo dalkii iyo dadkii haya iyo annagoo aqoonsiga adduunka hayna
labadaasi dawlo kastoo adduunka jirtaa way u baahan tahay aqoonsiga caalamka iyo dadkeeda iyo dalkeeda oo ay gacanta ku hayso marka aynu isku biirno oo aynu sidaa hal shayna waan soo jeediyey maalinta allahu naxariista cabdullaahi yuusuf iyo cali maxamed geedi khilaaf baa jiray waxaan idhi habeenkaa waxaan idhi odaygan ha la iska daayo oo ha joogo wakhtiga u hadhay kolkaa waxay ahayd 2 sano war sanaa waxaan idhi xukuumadda dhisa idinku prime ministerkii yeesha oo xukuumadda dhisa waxaa la yidhi min 5 xubnood kolkii hore waxay ahayd habeenka 3 qolo waliba 3 qof baa hadlaysa anuu 3dii baan ku jiray weeye waxaa la yidhi 5 xubnood ha la saaro oo soo diyaariya sidii aynu ku midoobi lahay 5taa waa laygu daray culimmadii noo timid hoteelka la yidhaaho shaamow ayaanu ku shirnay waxaan idhi anigu diinta islaamka ma baran si fiican uma aqaan laakiin culimmadu waxay noo sheegtay in qur-aanku uu soo degayay 23 sano markaa waxaa jiray jaadka iyo isboortiga iyo fanka iyo iyay wadaadadu lahaayeen qaarkood ma loo baahna waxaan idhi 23 sano ayaa qur-aanku soo degayay ood noo sheegteen ilaahay sow hal sekandi kumuu soo dejin karin oo sow kolkaa bini aadamka goojo goojo in loogu sheega ma ahayn waa ta labaade khamriga waxaa la ii sheegay in 3 aayadood iska soo daba degeen oo tii ugu dambaysay lagu xaaraantinimeeyey sow ilaahay markii horeba muu odhan karin waa xaaraan sow bini aadamka wax looma sheegi karin waxaan idhi markaa idinku maxaydun hadda waxa weeye dadka waa inaydun haddee tartiib wax ugu sheegtaan laakiin in la yidhaahdo ma jiro jaad iyo sport iyo fan iyo ma aha weliba waxaan qabaa baan idhi 2 arrimood inuu dadku u baahan yahay waxa weeye waa isboortiga iyo fanka waa 2 aaladood oo labaduba kaalin weyn ka qaadanaya midaynta dalka iyo hoggaamintiisa wiilkii ugu dhalinta yaraa 5taa culimmada ayaa yidhi cabdi xaashiyow adiga waa lagu yaqaan waxaan dareemay inuu leeyahay hadda shuuci baa tahay shuuci ma ihi baan idhi muslim baan ahay laakiin shuucinimada hal meeloo keliya ayaan fikirkaanu ka aaminsanahay waxaan ka aaminsanahay inaan dadka qaybtiisa tirada badanina baabi'in in yarina ayna hantidoo dhan urursan oon sidaa loo kala tegin intaasaan ka aaminsanahaani walaalayaalow caawa waxaan idiin sheegayaa sheekh shariif waa ku mahadsan yahay xaliimana way ku mahadsan tahay arrin ayay xusuusisay aniga si weyn ii taabataa arrintaasi waa maxay madaxda soomaalida intayn leeg ayay carruurtoodii dalka soomaaliya joogtaa soomaalidu waxay tidhaahdaa 3 laguma tafantoof beelo yacni 3 dhibaato lagagama baxo oo 3da mid waa iska daynaya laakiin labaan idiin sheegaya labadu maxay yihiin waa tolaan toofiiq lahayn haddii aan heshiis la ahayn dee wax jiraa ma jiraan iyo ta kale oo ah madaxaan tudhis lahayn ujeeddadaan ka leeyahay waxa weeye waxaan filayaa madaxda carruurtoodu ka maqan tahay ee aan joogini inayna u tudhaynin kuwa kale ee danta kursigooda la ajligii inay waxay doonaan u samaynayaan taas xaliimo erey halkaa ka tidhi oo ay sheegtay ayaa igu kalliftay
inaan intaa raaciyo tii sheekh shariif waxaan ka qaadanayaa ee dhaqaalaha ahayd abwaan soomaaliyeed oo inoo sheegaya qaninimada dalkeenna iyo sidaynaan inagu warba uga hayn laakiin adduunku uga warhayo wuxuu yidhi in dalkeennu hodan yahay weliba dihin yahay dabayl udug ku siisa oo diiran leeyahay dalxiiskana ku wacan yahay dunidu way ogsoon tahay laakiin inagu ma ogsoonin weeye inaan duunyo leenahay geelu door horaad yahay loo dinaahinaysiyo adhiguna ka daran yahay duurjoogtu dheer tahay dunidu way ogsoon tahay inagu ma ogin weeye in daaqu dhereg yahay ciiddu dalag habboon tahay soomaaliya meel kasta ood midho ku ribtaa way ka soo baxayaan ciiddu dalag habboon tahay bad durugsan leenahay kalluunkuna durduran yahay dubo oo ka dhereg yahay dunidu way ogsoon tahay inaguse ma ogsoonin weeye webiyaal durdurayo bad ku daadanaya dul iyo hoos khayraad dingiiga oon weli la daafurin dunidu way ogsoon tahay inagu ma ogsoonin weeye waxaan ku soo gebagabaynayay wuxuu leeyahay waxaa degaanka keenna ah dabka looga shidayaa faragelinta dibadda ah aan laynooga daynayn inay tahay daraaddood miyaydaan dareemayn soomaalidu taa way maxaa dulliga idin baday maxaa daman idinka dhigay dareenkii maxaa la tegey dunida sow ma aragtaan dadkana sow ma aragtaan waxaan mahad gaara u celinayaa oon ku soo gebagabaynayaa warkayga dowladda puntland madaxdeeda iyo shicib ahaanba iyo heritage oo shirkan ballaaran labadoodu si wada jira u hirgeliyey talooyin fiicanina ay ka soo baxeen